arinta shani tobanaad ayaa waxay tahay mustaqbalkaaga intee degaysa. dabcan arrimaha aan ka soo hadlay walaalayaal kow waxay quseeyaan shakhsiga diyaarintiisa, isdiyaarinta shakhsigu iska diyaarinayo dhaqab walbo, dhinaca waxbarashada, dhinaca caqliga, dhinaca xikmadda, dhinaca waayo aragnimada. kadibna waxaan guda galaynaa habdhaqanka dadka kale. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi ama bacd. walaalahayga meelba adduunka joogto aan islaamaya, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. run ahaantihi ilaahi subxaanahu jala wacalaa ka sokow waxaan u mahad celinayaa walaalihii khayrka iyo wanaaga mar walbo yani ila soo xiriirayay i weydiinayay sababta aan ku maqana ama sababta aanan usoo gelin instagramka ama snapshatka ama facebooka. meel walba ay igala soo xiriirteen. ilahay waxaan ka baryayaa khayrka iyo wanaaga sidaan ugu walaalownay inuu ilaahay jala wacalaa nagu walaaleeyo maaragtay diintan islaamka ilaa iyo maaragtay aan ka dhimanayno, kadibna kuwii jannada isku arkay ilaahay subxaanahu jala wacalaa haynaga dhiga. intaas kadib walaalayaal, waxaan jeclaystay maadaama su-aalooyin badan ay soo weydiiseen, aan adigana idin soo weydiiyey qaabka ugu habboon ee aad jeceshihiin inaan idinkugu soo bandhigaa arrintii aan ku maqnaa. waxaan uga hadlayaa videogan 15 qodob aan dhahay waa idiin soo bandhigaya. ilaahi subxaanahu watacaala hadduu ii fududeeyo. walaalo badan baa maaragtay arrimo kala duwan ka dhawaajiyay. insha allah bidna alkariim live ayaan kasoo gelayaa, video ahaana usoo duubaya, laakiin intaanan ama live ka soo gelin ama video ahaana idinkugu soo duubin 15 qodob ayaa waxaan go-aansaday marka hore inaad ogaataan 15 qodob maxay yihiin horta inaad ogaataan. kadibna insha allah bidna alkariim haddaad dooranaysaan midka ugu horeeya aan ka hadlayo iyo qaabka aan idinkugu soo bandhigi doono insha allah bidna illahi alkariim. arrinta koowaad waxay tahay, waxaan ka fikiraya waxay ahayd xakameynta nafta, in lala xisaabtamo nafta. waa arrinta koowaad. arrinta labaad waxaan ku maqnaa waxay tahay waxbarashada muhiimadda ay leedahay iyo ani ahaantayda shakhsi ahaantayda qaabka aan maaragtay u bilaabay haddana waxbarashadayda ee aan horey u joojiyey. arrinta saddexaad waxay tahay barkhigta ayaan diyaarinaya. barkhigta diyaarintiisana waad garanaysaan, waqti ay u baahan tahay, qarash ay u baahan tahay, qalab ayay u baahan tahay. marka waxaasoo dhanna waa diyaarinaya. dabcan way ku saabsan tahay arrinta BKD, arrinka aan diyaarinayo barkhigtiga. arrinta saddexaad. arrinta afaraad waxaan baaritaan weyn ku sameynayay fahanka kala duwan ee bini aadanka. taasna waa idinla qaybsan doonaa. arrinta shanaad waxay tahay waxaan baaritaan aad iyo aad yani dhaxal ku sameeyey qaabka aan ula dhaqmayno shakhsiyaadka kala duwani. arrinta lixaad ayaa waxay tahay diinta iyo sida aan u qiimeynayno meel walba aanu joogno. arrinta toddobaad ayaa waxay tahay fahanka dadka kuu dhow iyo kuwa kaa dhaadheer. arrinta sideedaad ayaa waxay noqonaysaa runta, yani aan baaray iisoo baxay idinla qaybsan doono. runta ayaan ka leexanaa haddaanu nahay Soomaali. waa sharaxaya sababta ula jeedo. ama haddaanu nahay dhalinyaro haddaan dhahdo runta waanu ka leexanaa. arrinta sagaalaad ayaa waxay noqonaysaa laba arrin oo muhiim ah oo lagu badbaadayo adduun iyo aakhiraba. arrinta sagaalaad. arrinta tobanaad ayaa waxay tahay sabarka. waan ka hadalnaa mar walba waa laga hadlaa, laakiin muhiimadda uu leeyahay in la dhuuxo, in la fahmaa, in lagu camal falaa sabarka iyo muhiimadiisa. arrinta tobanaad. arrinta 11 ayaa waxay noqonaysaa walaalayaal, dadka aad la tashanaysid waa inay ku qiimaysan yihiin, ama dadka aad la tashanaysid hadday wax si kaa noqdaan ama arrin kugu dhacdo. arrintaasna waan ka fikiraya, waan la qaybsan doonaa. arrinta kale ee 12aad waxay noqonaysaa saaxiibada kala duwan iyo hababka ay u dhaqmaan. dabcan waxaan u baahannahay, waa waxaad adigana u baahan tahay. arrinta 13aad ayaa waxay tahay arrin run ahaantii marar badan aan ka fikir, dhalinyaro aad u fara badanna ay soo weydiiyaan. waxaa ka mid ah intee ku guursadaa, Yurub ama Soomaaliya, ama dibadaha maan ku guursadaa ama Soomaaliya ku guursadaa. haddaan soo koobo, Yurub maan ku guursadaa ama Soomaaliya ayaan ku guursadaa. arrintaasna waan ka hadli doonaa. arrinta 14aad ayaa waxay tahay sidee u helaa calafkayga. dabcan qof walba calaf ayuu raadinaya. sidee marka ku heli kartaa
calafkaaga. Arinta 15aad ayaa waxay tahay mustaqbalkaaga intee degaysa. dabcan arrimaha aan kasoo hadlay walaalayaal kow waxay quseeyaan shakhsiga isdiyaarintiisa. isdiyaarinta shakhsigu iska diyaarinayo dhaqan walbo, dhinaca waxbarashada, dhinaca caqliga, dhinaca xikmadda, dhinaca waayo aragnimada. kadibna waxaan gudagalaynaa habdhaqanka dadka kale, kadibna waxaan sii gudagalaynaa mustaqbalkaaga iyo meesha aad ku dambayn doontaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.